بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي قيمها يقايها له أن برتان آلا بكوض السعنو وحان إذن لي هاي مركلة يو ولاشين شكري دكن يو برنامج عصب. أصحابي برنامج كان عصب انت أنا نقود الجنين كهر وحاربين أدين ما هذا عليو sida quruxda badan oo qiimaha leh oo aad mar walba ila socotaan oo aad bartaan ugu taxantihiin oo fikirka isu dhaafsano oo aad maxaa la dhihi jiray dhiirigelinta ila daba taagantiin aad iyo aad aan idinkaga mahad celinayaa waa marka ugu horeysa kadibna waxaan rabaa barnaamijkan idinkuugu tala galay asxaabay inaan galno intii nala joogtay walaalayaal waa idin baahanahay nala sii jooga dad walaalo isu baahanaan nahay inta maxaa la dhihi jiray nagu soo biiri doontana waxaan leenahay idinkuna soo dhawaada welcome subscribe ka saarta gambaleelkana furta si aad u rukumataan barnaamijyada bartaan aan soo geliyo insha Allah waan isula jaan qaadno biidnillaahi kariim like-tan waa noo muhiim commentigana wixii fikirkiina ah nagula soo wadaaga insha Allah taala intaa kadib waxaan rabaa barnaamijkii aan idinkuugu tala galay inaan asxaabay aan markaan aan guda galo waxaan rabaa barnaamijkan hal ku dhig waxaan uga dhigay naftaada hayso ama ha lagu haayo naftaada adigu hayso oo keer garayso oo ka taxadir ama cid ka naxaysa ku hayso ama cid aan ka naxayn intaad u dhiibato say doonto ha ka fasho bay fahmaysaana u maleynaa af Soomaaligu waa macno badan yahay waa lahjada badan nahay Soomaaliyan nahay ma sha Allah tabarakallah leeyahay isfahmayna naftaada hayso ama ha lagu haayo okay naftaada hayso ama ha lagu haayo maxaa ula jeedaa qof kasto anaga naga mid ah waxa Soomaalidu hore waxay u tiri tiisa daryeele aatu kale ku darsada qof walba oo anaga naga mid ah mas'uuliyadda koowaad waxa waa naftiisa ay ka saaran tahay barina waa la weydiinayaa hadduu si xun ula dhaqmana waa la weydiinayaa hadduu si fiican ula dhaqmana waa la weydiinayaa marka ugu horeyso qofka naftiisa marka uu meel saaro ayuu nafaf kale iyo mas'uuliyad qaadi karaa kana hadli karaa marka qof walba horta awalan naftiisa ayaa koow u ah maadaama naftiisa ay koow u tahayna waxa loo baahan yahay keerkii ay ka rabtay iyo maxaa la dhihi jiray nafaqeyntii ay ka rabtay inuu maaragtaa uu nafaqeeyo in maaragtaa nafsadiisa uu ka taxadiro anaga Soomaaliya nahay waxa aan cunaa waxay u badan yihiin wax markab iyo doon iyo wax lagu keenay cuntada aan wadaniga u naqaano wadaniga loo bixiyay oo cunadii asal wa fasal awoowayaasheen ayeeyaasheen ay ku soo noolaayeen ah oo wixii firileyda ahaa ee dhulka ka baxaya ah sida aan anaga aan isu naqaan hada Soomaaliyan nahay waa iska saynaaye ma isu gambanayne dadka qaar waabay ka faanaan waana isku caayaan Soomaha okay nafaqo oo dhan iyo caafimaad oo dhanna waxay ku hartay wixii dhulka ka baxaya waxa macmalka ah ee la soo sameeyo for example sokortu uma wanaagsana qofka bini aadanka ah inuu badsado jirka sokor uma fiicna laakiin ayaa jirta ayaa ruuxda si kala fiican sokorta cad ee aan anagu u naqaan inay sokor fiican tahay ee aan ku tartarneen dhahna sokor cad aan isticmaalnaa aan dhahno caafimaadka uma fiicna waayo waa macmal waa sokor la farsameeyay tee dhaanta ayadoo sokor tahay oo sokor waxba isdaamin oo sokor oo dhanba inay jirka u fiicnaan tee dhaanta waaye tan qasabka laga sameeyay oo brown sugar-ka ah ama brown tiqti ha ahaato ama yara brown xigeen ha ahaato yana ahaan sokor cad laakiin sokorta qasabka dhulka ka baxa laga sameeyay ayaa ka fiican dhinaca caafimaadka marka la yiraahdo sokorta macmalka ah oo sokor cadayda aan u ka sayno cad oo khatartaba u qabna anaga sidaas oo kale baastada iyo bariiska ayaa cunnada caamka ah ee Soomaalidu ay wada cunto ah jirkana waxba nafaqa ma geliyaan waxa ku dhaanta masagada ama haruurka qofba siduu u yaqaano galeyda ama faracada qofba siduu u yaqaano
ilaahay kuuma samadiida digirta kala nooca ah tan gaduudan tan cadcad tan maxaa la dhihi jiray cagaaran ee salbukada loo yaqaano waxyaabaha firileyda ah ee beeraha ka baxa qamadida ama sareenka hadba saa doonto u dhaho caafimaad markii la yidhaahda jirka kuwaas cunnada buunshada leh ee firileyda loo yaqaano ayaa u fiican caloosha u fiican dheefshiidka u fiican caafimaadka u fiican digestive systemka u fiican macnaha hore u wadayso oo fiicanoo markiiba shiidmaysa cunno maxaa u wanaagsan soomaaliyana maxaa cunno u naqaana cad iyo caano soo maha hilibka badan ma fiicna khaasatan hilibka gaduudan ama hilibka cas qofba siduu u yaqaano inaad joogto u cunto waxaa dhaanta inaad khudaar joogto u cunto inaad khudaarta cagaaran iyo frutiska joogto u cunto caafimaadka marka caafimaadka laga hadlaayo annaga waxaan rabno iyo waxa anaga jecelnahay iyo soomaalinimadeena xag iska dhig caafimaadka marka laga hadlaayo khudaarta cagaaran iyo frutiska wax uga fiican qofkii firiley cuna wax beeraha ka baxa cuna badarkan beeraha ka baxa cuna maxaa la dhihi jiray khudaartaas cagaaranna ku goosaarta goosaar le iga dhe annaga reer koonfurana goosaara u kasaynaa ku goosaarta yaa goosaartiisa maalin walba hilib aan cunin hilibka iska cun laakiinse maalin walba yuu noqonin maalin walba yuu ahaanin si khaasatan hilibka ariga oo soomaalidu ay ugu jeceshahay waxaa la yidhahdaa cholesteroolkuu keenaa cholesteroolka ayuu dhaliyaayuu keenaa qof cholesterool qaba ama baruurtiisu badantaa hilib ari inuu daa'intaa waa laga fiican yahay maxaase jirka u wanaagsan oo kaleento oo aan frutiska iyo khudaarta iyo firileyda beeraha ka baxa badarrada beeraha ka baxa aan ahayn waxaa u wanaagsan waxa soomaalidu ay waxa afka qalaad lagu yidhaahdo collagenka waa maxay collagen ma isweydiiseen waa maxay collagen waa maraqaas xagguu ka yimaadaa hilib baruur tiro badan leh intaad dab ku shubto oo karsamo oo subag iyo waxaa dhihi jira maraq iskor saaran asoo subagaasna uu ka yimiday baruurta hilibka kiisa ah collagen ma aha kaas waa sunti waad kaa ku dhiman lahayd waay oo cholesteroolka kuu keeni lahaa waa kee collagenka intuu ku jiraa collagenka wuxuu ku jiraa malaayga qof iyo ama kalluun qof bas u yaqaana madaxyada malaayga malaay ishiis kusoo fiirinays ma cuni kartaa qaarkeen waaba ka roorayaan maho madaxyada malaayga madaxa malaayga waa collagen miran collagena ka buuxa ama kalluunka qof bas u yaqaano waxaa ka mid ah xoolaha caadiga ah hilibka gaduudan ee xoolaha ama ari ha ahaado ama ha ahaado lo ama ha ahaado geele lafaha xoolaha la cuno hilibka gaduudane aan cunnay xoolaha lafihiisa maaha hilibkiisa waa lafihiisa waxaa maqli jiray weligay maqli jiray oo xataa anoo caruura ilaa anoo weyn aan maqli jiray dadkeenna soomaalida qaar baa wax badan fahamsan inuu ilaahay iska haleeshiyeyna fahamsaninna waa laga yaabaa dadka waqooyiga soomaaliya degan ee soomaalida ah qof 24 hour maraq uu cabo moogaado ma jiro inta badan yaa collagenkaas muxuu sameeyaa jirkuu qurxiyaa qofka wuxuu ka ridaa maxaa la dhihi jira qurux miran uu ka dhigayaa waa anti aging waayo oo dabiici ah anti aging dabiici waayo qofku da'da iyo laalaab da'du keentay iyo jactad iyo miin iyo kama muuqanayso da'du waa socotaa mar walba way socotaa waana imaanaysaa iyadu waxa waaye geed kuma soo gambanayso laakiin meesha ku jirto sahal qofkaasi da ugama soo baxayso ilaa uu cutushoobo maqaarkiisu wuu qurux badnaanayaa wuu u taagmayaa waa anti aging waayo waxaan anti agingka hadda lala wareegayo ma aragteen kareemkan waa anti aging heblo waa anti aging lagu haayo anti aging rasmi ah waa lafaha xoolaha oo maraq laga karsado oo maraqaas la cabo maraqa markuu lafaha ka soo baxo fiiri lafaha xoolaha maxaa ku jira dhuuxaa ku jira collagenka lagu sheegayo waa dhuuxaas markuu dhuuxu waa subag ma soomaa markii uu karo wuxuu isu bedelaya sooma subag camal uu noqonayo soomaha dhuuxaas
waa collagen waxaa maqli jiray waqooyi galbeed waxaa la sameeyaa lafaha garaaciinta la yidhaahdo garaaciintu waa maxay waa lugaha ariga neefafka ariga marka la qalo majimahooda hoose lugaha hoose markii jeenigii iyo wixii hilibkii intii lahayd laga goosto lugaha hoose maaragta qoobkay ku socdaan kasoo bilow ilaa iyo jilibka ku keen majimaha yaryarka ah maxay samayn jireen inta la jijibiyo baf iyo baf la kala si haddii hal mar lagu dhufto ayaa maraq laga karsan jiray markaasaa ragga jaadka cuna maxay ahda maqaayadaha iyo guryahaba loogu samayn jiray oo la siin jira maraq ahaan loo siin jiray waa caqli miiran waa fikir aan dad badan ayna fahamsanayn jirkana dheefuu u yahay maqaarkana qurux buu u yahay agekana wuu la dagaalamaa maxaa la yidhahdaa collagen collagenkaas waxaa laga helaa waa lafaha xoolaha hilibkooda la cuno iyo malayga madaxiisa digaaga ama doorada qofba siduu u yaqaanana waa laga helaa maraqeeda qasab maaha marka hilib baruur baruur la aho wada baruurho xayra inaad karsatood xayrtaas cuntaa no hilib waa iska karsan kartaa lafahaas markaa karsanaysa xoogoo hiliba waa ku darsan kartaa laakiin baruur yuusan baruur ka raaracda yeelanin baruurta ka qaad hilibkiyo jiira ku karso maraqa ruuxiisu wuu dhalayaa laakiinse inta badan maraq wuxuu ka yimaadaa ama baruurta ama lafaha marka maraqa fiican oo collagenka leh waa kuwa lafaha ka yimaada qofka bini aadanka dheef buu u yahay wuxuu u yahay xoog buu u yahay wuxuu u yahay qurux buu u yahay wuxuu u yahay da'da oo qofka aan laga garanin oo anti aging uu u yahay intaas buu isla yahay marka qofkii maraqa noocaas ee lafaha ka yimaada iyo ilaahay kuuma samadiiday firleyda ama cunada beeraha ka baxda sokorta uu iska daayay inuu iskaba daayaa la qaatay barkay cunada sokor ku jirtaa soo maaha cunada sokoraa ku jirta waxaan burkaan anaga tirada badan oo aan isla daba joogno wax jirka faa'iido uma laha sonkoru kusoo siyaadiyaa sonkortuna hadday badato baruur bay dhashaa qofka hadduu xataa subag cunin oo maxaa la dhihi jiray wax baruur la cunin oo waxaasoo dhan uu iska dhaafa laakiin wax macaan uu isla daba joogo macaankaas jirka intuu uga baahan yahay markuu ka qaato inta soo harta wuxuu ka dhigaa baruur buu meel ka dhigaa markaasaa maalinba kuus baruurha meel lagu dhigaaya caloosha dhexdeeda markaasaa beer subaguu kugu dhacaa hadhown maxaa la dhahaa calesteroloo qofkan ku dhacday calesteroloo qabaa calesterol baan kasii jirnay ma kasii jirin berigii hore soomaalida calesterol baan aqoonin ama beerkaa calesterol miral noqonaya oo subag ku badanayo oo xayri fuulaysa ama wadnaha waana khatar intuba waa khatar jirka baruurta uma fiicna laakiin lafahaas collagenkooda macal subagooda waad ku cabi kartaa waayo subagaasi ma aha mid baruur ka yimiday waa mid dhuuxa ka yimiday dhuuxa lafaha ka yimiday kala saar maaha mid baruur ka yimiday waa mid dhuuxa lafaha ka yimiday waxa kaloo la dhahaa malaha calesterolka xun calesterolka jirku u baahan yahay calesterol fiican oo jirku u baahan yahay calesterolka xun oo lagu xanuunsaday kala yihiin kan lagu xanuunsado waa kan baruurta ka yimaada calesterolka fiican marka waxyaabahaas oo dhan noqonaya waxaa kaloo noqonaya afakaadhada kaleeto fruitiskay ka mid tahay calesterolkeeda waa calesterolka jirku u baahan yahay waa calesterolka fiicnaa maxaa la dhihi jira barida oo idaha waxaa la yidhahdaa malaha calesterolka xun oo dadka calesterolka cudurka ah ku noqda subageeda malaha calesterol malaha ma fahamte koriska geela oo kaleeto waxaa la yidhahdaa calesterolka dadka ku dhaca ee cudur ahaanta ugu dhaca malaha calesterolka fiican oo jirku u baahan yahay laga helayaa maahane lagama helayo calesterolka xumaa oo maaragtay qofka xanuunku noqonayay marka saxaabey annaga waxaan isla daba taaganahay yaanya ama tamaandho ama tamaat ama waxaa doonto dhehe oo la kariyo oo dalac bilaash laga dhigay iyo haddii hilib la cunaayana hilib baruurahoo lasoo gato baruurtiisi maaragta subagi ka yimid laysku fuuqo iyo maraq ahaan loo cabo oo hilibkina la cuno wixii dhan laysku dardaro noloshiina ha u badnaadaan waxyaabaha badarka beeraha ka baxa oo firleyda oo inshallah anaga isku halka hadda aniga meesha aan joogo waa Afrika wixii aan dhihi jirnay waanbaha soomaalida qaar ay yaqaano kulligood ma yaqaanaan asxaabay intiina ka sayso waanbe halkan dahab iyo lulu ka yahay subaxi qofaan waanbe mashaari waanbe cabin ma u jirta camalno
yaa maba u jirtaba xoog iyo nafaqo iyo wax walbana wuu leeyahay waxaa kaloo meeshaan aan cajiib ah mataqaanaa maxoga subxaanaka ya allah subixi qofaan maxog iyo waanba ku quracanin yaa uma jirto xooga kooda ahna naag hadday taa xataa hal gacani kuga adoo nin ahay hal gacan kugu bili kartaa oo ku bili kartaa koray ku qaadi kartaa maxaa keenayo waxa beeraha ka baxay cunaan waxay cunaan moos la kariyey matooki u yaqaanaan waxay cunaan maxaa la dhihi jiray waanbahaas oo ay mashaari ahaan u karsadaan waxay cunaan ilaahay kuuma samadiida sooya oo asagana mashaari ahaan loo karsado waxay cunaan maxog oo caadil bataati macaan bocorka aan bocor gaduudka bocor hindiga aan dhihi jirno pumpkinka loo yaqaano waxyaabaha qudaarta noocaas ah qudaarta cagaaran oo ciidaas ka badan xooga kooda ah waad fajicisaa bariis oo weliba brown u badan ayay marmar cunaan waxaan tirada badan leh annagaan iska daba wadnaa wax faa'iida ay leeyihiin male oo warshaduhu intay soo samayn annagana lagu qufo marka asxaabay marraba barnaamijku inuu sii bato oo sii dheeraado naftaada adigu haddaadan ka taxadirin cid kaa ka taxadiraysa mal naftaada haysa ama ha lagu haayo markii la dhahayo laba arrin ay u dhigantaa in qof adig kaa naxayo ha kuu haayo oo wixii naftaada anfacaya ha kuu sameeyo way u dhigantaa adiga naftaadii qof kale ammaano ugu dhiibo oo magan ugu noqo oo wuxuu doonaha kugu falo wuxuu doonaha kugu sameeyo oo wixii naftaada hoos u dhigaayo mahana wax kale yuu kugu samayninoo adigu naftaadii qof maxay ahday ammaano uga dhigo oo u dabagal na way dhici kartaa ha kugu ciyaaro wuxuu doonaha kugu sameeyo labadaaba way u fasirantaa marka asxaabay naftiina caafimaad ilaahay baa haaya laakiin nafsadiina iyo caafimaadkiina iyo wixii caafimaadkiina la shaqaynaya ee caafimaad xaggiisa ku wadaaya gacantiina ku qabsada ogow ruux walba xayaatadaas yarta ay ku jirtay ammaanada ku ah isagaa la weydiinayaa beri marka naftaada sonkortana ha la iska joojiyo sonkorta iyo saliidda iyo milixa waa saddexda dadka disha waaye ama cusbada qofba se u yaqaano waa saddexda dadka disha sokor badan iyo cusbo badan iyo saliid badan waa loo dhintaa cudur oo dhanna ayagaa keena intaasba ha laga taxadiro kolijiinkan ayaan laysla moogaanin cunadan aan wadaniga u bixino markaan dambe digrihii laysku caayi jiray iyo maxaa la dhihi jiray waanbihii oo dadka qaarkiis lagu caayi jiray iyo maxoogii lagu caayi jiray waryaadaha kuwaasaa naf iyo nolol noogu horeysee wax beeraha ka baxo hala cuno ilma adeerayaalow yaan wax beer warshadu soo calaajisay naf laga dayno cudur loo dhimaanin iyo waxaan la aqoonin marka khayr badanna waa idiin rajaynayaa asxaabay aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan leh aad iila socotaan oo aad maaragtay barnaamijyadeeda mar walbaba aad dhiirigelinta ula barbar taagan tihiin aad iyo aad idinkaga mahad celinaya biidnillahi kariim waxaa idin leeyahay saas aan wada joogno aan wada soconno khayr badanna waa idiin rajaynayaa taariya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabaadinada ee baha ahaato korkiina nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu